labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland ayaa imaanaya Muqdisho si ay madaxweynaha Soomaaliya ugala doodaan marxaladda xilliga kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka. Socdaalkooda oo xoogiisu uu yahay dalab ka yimid safiirada Mareykanka iyo Britain ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweyne Farmaajo uu miiska u saaran yahay heshiiskii Dhuusamareeb 3. labada nin ayaa la soo wariyay inay laba arrin u diyaar garoobeen. midda koowaad waa in heshiis cusub la gaaro oo maamulada kalena la waco lana tuuro nuqulkii Dhuusamareeb 3. midda labaadna waa in haddii madaxweyne Farmaajo ku adkaysto in la ixtiraamo heshiiskii Dhuusamareeb 3 inay iyaguna keenaan ilaa 5 qodob oo heshiiskaasi ku jirta oo aanay aqbali karin. sida ay ila xoogaala u sheegeen adduunka TV, labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa madaxweyne Farmaajo ka codsaday inuu shirka Muqdisho ku soo daro maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, laakiin maamuladaas ayaa xoogaa ka cagajiidaya inay yimaadaan shirka Muqdisho inkastoo ay dhici karto in xagga beesha caalamka laga soo maro. waxaan eegaynaa 5 qodob ee la sheegay in Puntland iyo Jubbaland dalban doonaan in wax laga bedelo haddii dhinacyada kale ku adkaystaan in la qaato heshiiskii Dhuusamareeb 3. 1. in doorashada lagu galay xisbiyo. labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegay in aanay diyaar u ahayn tartan ku dhisan xisbiyo, waxaana ay qabaan in doorashadu noqoto mid keli ah, taasoo sidoo kale ay la qabaan inta badan xubnaha mucaaradka. 2. tirada ergada wax dooranaysa. shirkii Dhuusamareeb 3 waxaa ka soo baxday in halkii xildhibaan ay doortaan dadweyne gaaraya 301 qof, iyadoo sidoo kale kuraasta qaarna la mideyn karo. qodobkan waa ku culus yahay labada maamul sida ay sheegeen ilaa xogta la wadaaga adduunka TV, balse waa adkaan doontaa ayay leeyihiin dooda qodobkan maadaama uu madaxweyne Farmaajo aaminsan yahay in 301 qof ay weli yar tahay. 3. doorashada halka maalin ah. maadaama heshiiskii Dhuusamareeb 3 uu dhigayay in hal maalin la wada doorto 275 xildhibaan ee golaha shacabka, waxay Puntland iyo Jubbaland arrintaas u arkaan mid sababi karta ku shubasho doorasho, amni darro iyo in la xakameyn waayo doorashada. balse aragti taas ka duwan ayay qabtaa filla Soomaaliya oo ah in doorashada halka maalin ay meesha ka saari doonto awoodda ay madaxda maamul goboleedyada u lahaayeen inay kuraasta qaar boobaan. 4. guddiga ay madaxda u tahay Xaliim Yarey. sidaan xogta ku helnay, labada maamul ee Muqdisho kula shiri doonta madaxweyne Farmaajo ma ogola inay shaqada doorashadan qabtaan guddiga doorashooyinka qaranka ee ay madaxda u tahay Xaliim Yarey. waxa ay qabaan tuuna inuu guddigan aad ugu dhow yahay madaxweyne Farmaajo. shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa guddigan siiyay awood dheeri ah, balse labada maamul ee shirka ka maqnaa ayaa door bidaya in guddi cusub la dhiso. 5. tirada deegaanada la dhigi doono kuraasta. haddii ay Puntland iyo Jubbaland qaadanayaan heshiiskii Dhuusamareeb 3, waxa ay qabaan in qodobkaasi uu ka mid noqdo kuwa la bedelayo. waxaa la sheegay inay aaminsan yihiin inay doorashadu ka dhacdo caasimadaha maamul goboleedyada oo kaliya sidii doorashadii ugu dambeysay ee 2016. laakiin madaxda filla Soomaaliya waxay u arkaan in la badiyo deegaan doorashooyinka mid ka mid ah waxyaabaha ay mustaqbalka ku faani karaan iyo mid caawin karta qaar ka mid ah xildhibaanadii la duubnaa 4 sano ee la soo dhaafay. 5taas qodob ayaa la sheegay inay miiska u saaran tahay Axmed Madoobe iyo Dani waa haddii madaxweyne Farmaajo ku adkaysto in lagu galo doorashada soo socota heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb. hogaamiyaashan ayaa magaalada u imaanaya sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka maadaama ay horey u diideen inay ka qayb galaan shirkii Dhuusamareeb 3 ee lagu go'aamiyay qaabka ay noqonayso doorashada dalka. hase ahaatee arrinta ugubka ah ayaa ah in hogaamiyaashan imaatinkooda in maanta loo xiray dhammaanba waddooyinka magaalada Muqdisho oo la diiday isku socodkii gaadiidka magaalada, weliba iyaga oo jooga magaalooyinkii ay ku noolaayeen ee Garowe iyo Kismaayo oo aan u soo ambabixin magaalada Muqdisho howlahoodii caadiga ahna halkaasi ka wata. shacabka Muqdisho ayaa saaka ku soo toosay waddooyinka qaarkood oo xiran iyaga oo dadku ay u lugeynayeen goobahooda ganacsiga, xarumaha waxbarashada iyo kuwa shaqada intaba. waxaa kaloo xusid mudan in wax horey loo bartay aysan ahayn in madaxda dawlad goboleedyadu markay imaanayaan magaalada Muqdisho in dhammaan waddooyinka magaalada la xiro, taas oo dadka magaaladu ay su'aalo badan iska weydiinayaan. qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo la hadlay Radio Kulmiye waxa ay sheegeen in arrintan ay tahay wax aad looga xumaado, waxaana ay si carale uga hadleen xirnaanshaha waddooyinka Muqdisho. madaxda dawladda federaalka ayay ka dalbadeen in aan lagu dhibin isticmaalka waddooyinka. qorqor baa imaanayay, waxaa imaanayay lafta gareen, waxaa imaanayay maxaan ku radaa Hirshabelle. hal maamul goboleed oo jidka loo xiray ma jirin. midda saa ka dhacda
raalliba kama nihin waxaan marnay saaka waxaan ka lugeeyay cabdicasiis waxaan ku tegay saybiyaano waa yeel baan ahay ilbaan u qaraabtaa waa socon waayey jilbii baa xanuunay ma dhaqaaqi karo